بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين شركنا جرايد maanta waxa uu ku saabsan yahay kulan maanta aan la lahayn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble kulankaasi oo ku aadanaa arrimaha doorashooyinka runtii ra'iisul wasaaraha waxaan ugu tagnay hoygiisa waan ugu tagnay aad iyo aad uu noo soo dhaweeyay waa ku mahadsan yahay laakiin kulankan wuxuu ku la xiriiray kulamadii isdaba joogga ahaa iyo shirarkii isdaba joogga ahaa golaha midowga murashaxiinta ay ka yeelanayeen arrimaha Soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka oo hadda doorashooyinka gudbay ay isu bedelay boob qaawan ra'iisul wasaaraha waxaan ula tagnay arrimo muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjumayno dareenka bulshada Soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka Kenya ah iyo kan bulshada Soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhaweeyay waxa uu noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wada tashiga qaran dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin isu hufan oo hagaagsan si ay u dhici lahaayeen warna way ka soo saareen war cadna waa uu ka soo saaray ra'iisul wasaaruhu annagu sideeni kale waxaan wadi doonaa kulamadeennii aan la shiraynay dhexdeena iyo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan waxaan uga gol leenahay in bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaq u leeyihiin daruurigana u ah inay helaan xaq waxa ay leeyihiin doorashooyin daahfuran oo hagaagsan oo ku dhaca jawi nabad ah ay ka dhalato doorasho ay ka dhalato dawlad lagu helo deganaansho dadkuna ay wada ogol yihiin hadda sida ay wax ku socdaan waa hanaan khatar ku ah jiritaanka iyo wadajirka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliya meel kasta uu joogo doorashooyinka socda kuwii anfacay ma ahan kuwii dawladnimada lagu helayo ma ahan kuwii deganaanshaha keenaya ma ahan waxaan u taaganahay sidii sanad ka hor baan ugu taagnayn inaad heshaan doorashooyin daahfuran xor ah xalaal ah ka dhasho hoggaan wanaagsan oo dalka hay karo si silica dhaqaalaha leh nabadgelyada leh caafimaadka leh xiriir xumada dibadda leh looga baxo oo dadka iyo dadka Soomaaliya ay helaan hoggaan arrinkaas ka samato bixi karo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin afayana magacaygu waa Samson Maxamed Ali waxaan ka soo dhawaatay Karlaadi marka laga soo tago in ra'iisul wasaaraha uu idin balan qaaday in uu isugu yeerayo madaxda kale ee arrimaha doorashooyinka ka shaqeynaya maxaa laga yeeli doonaa kuraasta weli muruq uu ka taagan yahay balse la doortay arintaas ma galaadeen waxay la tahay qof kasta oo dulmanaa oo doorashooyinka lagu dulmiyay waxa uu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo cadaaladaasina waxay ku imaan kartaa falaadka la sameeyay iyo hanaanka aadka u qaawan ee boobka ah in wax laga qabto xaaladii hore ha noqoto xaaladaha dambe ha noqoto laakiin waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha inaan fursad siino oo la kulmo golaha wada tashiga qaran annagoo dhanka kalena sii wadi doono dadaaladii aan wax ku saxaynay wax ku toosinaynay ummadda Soomaaliya aan ugu danaynay waa mahadsantihiin kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo daafurnaanta hanaanka doorasho ee dalka midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaare Rooble la wadaagay walaac weyn oo ay ka muujinayaan daafurnaan la'aanta doorashooyinka dalka ka soconaya iyo sida aysan raalli uga noqon karin habka iminka wax u socdaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo tixgelinaya tabashooyinka la xiriira daafurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ayaa ballan qaaday in golaha wada tashiga qaran uu ka yeelan doono kulan ku saabsan sidii si wadajir ah looga shaqeyn lahaa in doorashooyinka dalku ku dhacaan si hufan loona sixi lahaa qaladaadka jira kulanku oo socday muddo ka badan 5 saacadood ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta u warbixiyay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macalimow go'aanadii ka soo baxay kulankaasi waxyaabihii la isla qaatay bismillaahir rahmaanir rahiim war saxaafadeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daafurnaan la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli uga noqon karin habka ay hadda wax u socdaan ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda midowga musharaxiinta waxa uu uga warbixiyay dadaalka joogtada ah
ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray gudiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wada tashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona sixi lahaa qaladaadka jira. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo sidoo kale shir fogaan araga kaasoo laga hadlayo daahfurnaanta doorashada isagoo cadeeyay in lala xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doorashada. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.